Halkani waxaa ku soo gabagabowaya tahanihii aynu ku soo socnay ee miraha akhriska. Tahana aynu ka barnay muhiimadda, qiimaha iyo xoogga uu akhrisku ku leeyahay horumarka qofka iyo bulshada. Muddo aynu soo daawanay cutubyo tahane ah, waxaan ogaanay in akhrisku uusan ahayn kaliya wax lagu raaxaysto, balse uu yahay hubka ugu awoodda badan ee lagu gaari karo isbeddel dhab ah. Cutubkan afraad oo ah kan ugu dambeeya wuxuu soo hirayaa safar aqooneed oo bilowgiisu ahaa xiise, balse dhammaadkiisu yahay dhiirigelin iyo rajo cusub. Safarkan iyo soo koobidda buuggan qiimaha leh ma aysan soo toobeen la'aantiis dadaalka iyo dhiirigelinta saaxiibka Abaas Maxamed Iidow, kaasoo sabab u ahaa mashruuca soo koobidda buuggan. Haddaba maanta waa maalintii aan dhihi lahaa miraha akhriska waa la guray. Cutubka afraad: caqabadaha akhriska ka hortaagan bulshada Soomaalida iyo xalkooda. Daawade, qoraagu waxa uu ku bilaabayaa su'aal ah: maxaan ugu sifownay bulshooyinka ugu liita marka laga hadlayo horumarka? Sababtu waa inaan inagu qiimo iyo muhiimad siinaynin aqoonta iyo heliddeeda. Sidoo kale waxaan waxbarashada ku maalgelinaa miisaaniyad aad u hooseysa. Caqabadaha wax akhriska inaga hortaagan. Wax kastaba sabab ayay leeyihiin. Waxaa jira sababo iyo caqabado inaga hortaagan akhriska iyo helidda aqoonta. Waa kuwan caqabadaha ugu badan. Bulshadeena Soomaaliyeed waxaa ku badan tirada aan wax qori karin waxna akhrin karin. Dadkan, maadaama ay aqoon u lahayn akhriska iyo qoraalkaba, ma fahmi karaan muhiimadda akhriska. Arrinkan oo saameysay dadka wax garanayo, maadaama laga tiro badan yahay. Waxa ay la dhaqan noqdeen dad ka tiro badan oo iyaguna waxba ma akhriyaan. Qoraagu waxa uu qabaa in arrinkani uu yahay mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee na haysta. Dadka wax bartay oo intooda badani ah. Daawade, maxaad u malaynaysaa in qoraagu ula jeedo hadalkan? Dad wax bartay haddana ah. Dabcan, dad wax bartay oo aqoonsiyo waxbarasho ka haysta, haddana u dhaqmaya sidii qof aan waxba baran. Ama wuxuu ula jeedaa dadka aan aqoonta waxba ka bedelin oo ku faana inay jaamacad hebel ka baxeen oo heerkaas baan gaaray ku faana. Arrinkani waa mid bulshadu aad ugu faafsan xilligan la joogo, oo waxa uu taagan yahay waxbarashadii ayaad ka neebsanaysaa. Wax ma akhriyo, wax ma baaro, oo qofka ummiga ahi ayuu la mid yahay. Oraah baa jirta odhanaysa: qofkii wax akhriska yaqaan oo aan waxba akhrin, wax qiimo ah ma dheera qofka aan waxba akhrin karin, waxna qori karin. Manhajka waxbarashada oo aan ardayga ku dhiirigelinayn wax akhriska. Daawade, intaan qodobkan gudaha u galin aan ku weydiiyo su'aashan: intaad iskuul dhiganaysay weligaa ma aragtay xiisad la dhaho wax akhris? Ama intii la idin waday meel maktabad ah ma la idin geeyey, oo iskuulka ma la idinku qaybay buugaag si aad u soo akhrisataan? Kadibna dabagal ma la idinku sameeyey, oo dadkii wax akhriyay ma la abaalmariyey? Su'aalahan jawaabahooda adiga ayaan kuu daayay. Markaan aan hore u socono, manhajka waxbarashada waa meesha ugu muhiimsan ee laga hago dhaqan nololeedka bulshada, waana tiirka go'aamiya masiirka ummadda. Mar kale, isaga ayaa ah midka go'aamiya tayada waxbarashada iyo heerka wax soo saarka bulshada. Sidaa awgeed, waa in manhajku uu noqdo mid dhiirigeliya akhriska, qoraalka iyo waxbaarista ama cilmi baarista joogtada. Tiknoolajiyaddu waa laba afle, oo qofkii si wanaagsan u adeegsada faa'iido ayuu ka helayaa, qofkii si khaldan u adeegsadana khasaare ayuu kala kulmayaa. Inaga bulshadeena waxa ay badanaa adeegsadaan qaab aanan faa'iido ka helaynin, oo qoraagu waxa uu qabaa in tiknoolajiyadu ay tahay sababta ugu weyn ee bulshadeena Soomaaliyeed ka weecisay akhriska buugaagta iyo ka faa'iidaysiga waqtiga, oo ah laba shay oo nolosha muhiim u ah. Waxaadna ogaataa in akhrinta qoraalada lagu faafiyo baraha bulshada aysan ahayn akhris micno iyo faa'iidooyinkii aan ka soo hadalnay laga helayo buugaagta oo aan afkeena lagu turjumin. Si ay bulshada u dhaxlaan hababka iyo xaaladaha bulshooyinka kale ay adeegsadaan si ay u horumaraan, waa in la helaa turjumadda buugaagtooda iyo wixii ay qoreen. Qoraagu waxa uu leeyahay, waddankeena kama jirto turjumidda buugaagta gebi ahaanba, maadaama uu buuggan xilli hore soo saaray oo turjumaddu aad u yareyd. Si kastaba ha ahaatee, qoraagu waxa uu ku nuxnuxsaday yaraanta in aysan jirinba, yacni turjumidda buugaagta ku qoran afafka kale ay ummadaha ka weecisay akhriska. Dadka Soomaalida waxay ku mashquulsan yihiin xuquuqdooda. Insaanku waxa uu u baahan yahay xuquuq ay tahay inuu helo, sida cunto, waxbarasho, guri iyo guurba. Marka qof ku mashquulsan, tusaale ahaan helitaanka buugaagta diraasadda, oo ma raadinayo buugaag dheeri ah oo gooni loo akhristo, ilaan kuwii waajibka ahaa ayuu heli la'yahay. Arrinkani waa mid kale oo bulshada ka weecisay akhriska. Daawade, intaas waxay ahaayeen caqabadaha uu qoraagu ku sheegay inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshadeena ka hortaagan akhriska. Haddaba, haddii aan ogaanay caqabadaha, su'aasha xigta waa: muxuu yahay halka? Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay:
Alle ma beddelo qoom ilaa ay beddelaan waxa ay nafahooda ku sugan yihiin. Sidaa awgeed, si isbeddel u dhaco, waa inaan wax isku falnaa. Waxaan sheegaynaa qodobo haddii aan ku dhaqaaqno aan isleenahay bulshadeena waxa ay noqon kartaa bulsho wax akhriska horumar ku gaarta, oo waa sida uu qoraagu leeyahay ee aanu tixno qodobada. In manhajka waxbarashada aan ka dhigno mid akhriska dhiirigeliya. Sidii aan hore u soo sheegnay, manhajku waa meesha lagu xakameeyo bulshada. Sidaa daraaddeed, waa in manhajku uu noqdo mid ardayga ku dhiirigeliya cilmi baarista iyo akhriska horta ah. In goobaha waxbarashada lagu dhex diyaariyo maktabado iyo jawi wax akhris, taas oo fududaynaysa dhisidda caadadan iyo la qabsiga ku dhex jirka buugaagta iyo akhrintooda. In qoonto dhaqaale la siiyo qorayaasha, cilmi baarayaasha iyo soo saarayaasha buugaagta. Haddii la taageero dadkan, waxaa badata aqoonta iyo buugaagta, waxaana ay keentaa ku tartamidda soo saarista buugaag tayo iyo qiimo leh. In la dhiso naadiyo wax akhris. Haddii ay dhalintu ku tartanto akhrinta buugaagta kuna xifaaltamaan, waxaa hubaal ah in caadadan akhriska ay bulshada ku dhex faafayso. In la dhiso mu'asasaad wax turjuma. Xarumahan howshoodu waa turjumidda buugaagta ku qoran afafka kale, waxaana ay fududeeyaan baahitaanka helitaanka buugaag ay bulshadu u baahan tahay. In la helo maktabad caam ah oo qaranku leeyahay. Maktabadahani waxaa laga helaa dhammaan noocyada buugaagta. Sidoo kale waxa ay noqotaa keedka taariikheed ee ummadda, oo waxa ay jiil soo socda u noqotaa meel ay aqoonta iyo taariikhdu ka dhaansadaan. In la helo cid hubisa tayada buugaagta ay qorayaasha bulshada u soo gudbiyaan, si loo helo buugaag tayo leh, loona ogaado fariinta uu qoraagu gudbinayo. Bulshada waa lagama maarmaan in la kormeero oo laga warhayo buugaagta la soo saarayo. Qodobadan aan soo sheegnay qaarkood shakhsiyaad ayaa fulin kara, qaar kalena mu'asasaad iyo dowlad ayaa ay quseeyaan. Laakiin waxaa la hubo ayaa ah, ayuu leeyahay qoraagu, haddii aan qodobadan ku dhaqaaqno, waan ka bixi karnaa xaaladaha akhris la'aanta ah. Xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo isbeddelka. Isbeddel iskuma imaanayo ee waxa uu u baahan yahay aqoon iyo cilmi, waxaana lagu gaaraa akhriska. Allah subxaanahu wa tacaala markii uu risaaladan soo dejinayay si uu dadka noloshooda oo dhan u beddelo, waxa uu risaaladiisa ku bilaabay akhris, taas oo daliil u ah in akhrisku uu yahay barbilowga iyo aasaaska isbeddelka. Qof kasta oo aado akhris lehna waxa uu isku arkayaa isbeddelo badan, waxaana ka mid ah hankaaga ayaa isbeddelaya. Maadaama aad akhrinayso taariikh nololeed dadyo badan oo noloshooda heer sare ka gaaray, misena heer hoose ka bilaabay oo guulo badan ka gaaray, adna markaas han sare ayaad yeelanaysaa. Kalsoonida naftaada ayaa isbeddelaysa. Daawada, ka waran adiga oo hadda dhameeyay akhriska taariikh nololeed qof naftiisa iyo bulshadiisa u horseeday isbeddel iyo horumar. Miyaadan isku arkaynin rabitaanka inaad adna sidaasi oo kale aad noqoto? Oo miyaadan ka qaadaynin sheekadan kalsooni iyo dhiiranaan? Maskaxdaada iyo fikirkaaga ayaa isbeddelaya, oo maskaxdaada cuntadeeda ayaaba ah akhriska iyo aqoonta. Marka maxaad ka sugaysaa beer inta la abuuray haddana la waraabiyey, oo miyaanay miro iyo dalag ka soo go'ayn? Maskaxduna waa sidaa. Haddiiba maskaxda korto oo cuntadeeda hesho, fikirkaaga iyo aragtidaadu waxay noqonayaan kuwo hagaagsan. Heerkaaga aqooneed ayaa isbeddelaya. Akhriskuba waa furaha aqoonta. Haddii baad akhriska caado ka dhigatay, inaad isbeddelkan isku aragto waa lagama maarmaan. Haddii kale, qaab akhriskaaga ayaa lagu jiraa oo aan saxnayn. Dabeecadahaaga iyo dadla dhaqankaaga ayaa isbeddelaya. Waxaad noqonaysaa qof macluumaad iyo xog badan ka hayay nolosha qaybaheeda kala duwan. Waxaad noqonaysaa qof aanan mar walba dhib u arkin khaladaadka dadka kale. Waxaadna khaladaadkaas u wajahaysaa si wanaagsan. Oo waxaad ogaatay in insaanku uusan ka maarmayn khaladaad. Haddaba daawade, haddii aad ku taamaysay inaad yeelato dabeecad wanaagsan iyo dadla dhaqan wanaagsan, wax akhriska joogtee. Luuqadaada ayaa isbeddelaysa. Haddii aad wax badan akhrido, waxa koraysa luuqadda aad wax ku akhrido. Akhriskuna waa hababka ugu muhiimsan ee luuqadaha lagu barto. Sidaa daraaddeed, haddii aad rabto inaad luuqadaada horumariso ama aad mid cusub barato oo aad heer fiican ka gaarto, wax akhriska ayaad isbeddelka ku samayn kartaa. Xifdintaada iyo xasuustaada ayaa isbeddelaysa. Akhrisku waxa uu ka shaqaysiiyaa maskaxda. Markaas kadib, waxaa kuu fududaata xifdinta iyo xasuusta wixii aad akhriday. Daawadahaygiyo, qoraagu waxa uuna leeyahay halka xasuus yaraanta iyo xifdintuba waa akhriska. Qoraalkaaga ayaa isbeddelaya. Qoraalka wanaagsani waxa uu ka imaadaa akhriska wanaagsan. Qofka aan wax akhrinta joogtaynin oo aan diiradda saarin, ma soo saari karo buugaag iyo maqaallo tayo leh. Talada ugu horreysa ee la siinayo qofka raba inuu buug qoro waa inuu wax akhriyaa. Waxaadna ogaataa in qoraaga wanaagsan ee buuggiisa aad ka heshay uu yahay akhriste wanaagsan.
khibradaada ayaa isbedelaysa. Marka aad wax akhrinayso, waxaad qaadanaysaa khibradda qoraaga buugga. Marka haddii aad akhrido buugaag kale oo midba ka hadla qayb ka mid ah nolosha, shaki la'aan waxaad khabiir ku noqonaysaa dhinacyadaas aad wax ka akhriday. Noloshaada ayaa isbedelaysa. Isbedel oo dhan waxa uu ka dhashaa aqoonta. Aqoontana heli maysid ilaa aad wax akhrido. Akhriskana waa furaha aqoonta. Haddiiba aad wax akhrido, aqoon waad helaysaa. Isla markaana waxaa isbedelaya fikirkaaga, aragtidaada, maskaxdaada, dabeecadahaaga, kalsoonidaada luqadeed, qaab qoraalkaaga, hankaaga iyo hamigaaga. Sidoo kale isbedel dhaqaale. Intaa ayaa si tartiib ah isu bedelaya. Markaas ayaad isbedel nololeed dhaxlaysaa. Daawade, intaas waxay ahaayeen dhinacyadaad isbedel ku dareemi doonto haddii aad akhriska joogtayso oo aad la saaxiibto. Waxaana qodobadan u soo sheegnay si ay dhiirigelin idinkugu noqdaan oo aad u bilowdaan akhriska. Ugu dambeyntii, halkan ayuu ku soo idlaaday taxanihii miraha akhriska. Buuggani wuxuu inoo ahaa iftiin naga saaray mugdiga aqoonta, wuxuuna na baray in akhrisku yahay jidka kaliya ee lagu gaari karo faham, furfurnaan iyo horumar. Intii daawatay, la socotay ama qayb ka noqotay safarkan, mahadsanid. Gaar ahaan saaxiibkay Abbas Maxamed Iidow, oo aan u arko qofkii igu dhiirigeliyey fikradda iyo himilada in buuggan la soo koobo. La'aantiis taxanahan maanta ma dhammaan lahayn. Haddaba daawad, hal su'aal ayaan kuu reebayaa. Ma sii wadi doontaa akhriska si aad u kobciso maskaxdaada, mise safarkaagu halkan ayuu ku ekaanayaa? Ilaa aan mar kale ku kulanno barnaamij kale, waxaan ku leeyahay akhriso, baro oo beddel naftaada. Waayo akhrisku waa furaha nolol cusub. Waa sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.